waxaan arkay dad la wareysanayo ugu dambeeyay neero fanaan oo daawaday oo la weydiiyay ma soo guursatay oo ku warceliyay hayo 7 dumar oo nin dhalinyar aad u daayar oo dhowr 20 jir ah waxaan yar dareemaa haddii qofka lagu yiraahdo magaca yiraahdo hebel 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 maxaa u furan yiraahdo magacaygu hebel laba kalena noo raaci ama mid noo raaci dadkeenu in badani waxay sheegeen xog aan loo diran marka la wareysanayo qof baa ku warramaya wax allaale iyo xuduunu kaaga sheekayn adoon waxba weydiinba noloshiisu dhan buu kaaga warramaya marka dadka qaar waxay doonayaan inay nafisaan oo culeys ku jira iska dejiyaan dadka qaarna waxay ka tahay waxa kalmay xadkii baa kalmay maxaad sheegaysaa maxaanad sheegay nolosha gaarka ee qofku leeyahay haddii laga wareysto wuxuu qofku xaq u leeyahay inta uu ogol yahay inuu sheego noloshaada gaarkaada leh dad baad arkaysaa lagu leeyahay taageerayaashaadu waxa ay doonayaan inay ogaadaan inta caruuraad leedahay sidaad u nooshahay nolosh yacni qofku inuu bannaanka iskeeno qofku wuxuu sheegayo waxaanu sheegayn waa inay u kala soconaato ma soo guursatay haa laakiin dadka qaar ba haa waan soo guursaday waan dhaqanahay alxamdulilah caruur bay joogtaa wala fayahay intaasoo dumar ها عرورة وانو دقنا marka inaga dadkeenu waa in badan waa wada wariye aan la dirsan weydiima aan xad lahayn oo soconaya marka qofku wuxuu sheegay iyo waxaanu sheegay markay u kala socon yihiin noloshaada gaarka ah adiga leh wixii laga weydiinayo sida wax lagu weydiinayo si aad u warcelinayso maaha wax kastana banaanka keento wax weyna diidi karto cidina xaq ugu ma laha saad u nooshahay qoyskaaga reerkaaga caruurtaada noloshaada waxaad haysato dadka qaar badanka gurigooda wax kasta oo yaala duubaya oo aan haysan karin nimcadii qofku ma haysan karayo waa inuu dadka tuso dadka hormarmariyo noloshaada gaarka ah adiga leh ilaasho in waxba dadka ku wareerin waqti ka heersanayna cabshuul xusn salaamatu alayhi.